Royal TV, Royal TV, Royal TV, Royal TV, Royal 24. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada warka Royal TV oo si toos idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada London. warkana waxaa idinla socodsiin doona anigoo Maxamed Cabdisalaada. madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo iyo mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee wakiilada iyo guurtida Somaliland ayaa maanta waxa ay ka qayb galeen aas qaran oo magaalada Hargeysa loogu sameeyay. Allah u naxariistay xildhibaan Cabdullaahi Xirsi Dhugad oo kamid ahaa golaha guurtida Somaliland shalana ku geeriyooday magaalada caasimadda ah ee Hargeysa. waxaa warbixinta warkaasi magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyeena Faisal Fifa. على نحريستي جنفر دوسها كورابي وحمانتا آسقران لوغو سمي قبورها ناسا هبلودا دولاد كباري مجالة درقيسا مرحوم حلبان عبدالله إبراهيم حرسي دوغد او كميدا حلبانا دا أقل كاقولها ودياشا قورتدا إسامر كان كميدها دادك انتا بدان لوغو مجارتو حالينتا خلافات كسوكا لدحقالا بيلها سوماليلان على نحريستي جنفر دوسها كورابي وحمرحوم كآسكي ساساكا كقيب غالي مدحوينها سوماليلان أحمد محمد محمود سلايو لبدا قدومي لبدا أقل قولي قورتدا يوكيلدا سلبان محمود يا عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ابن كميدا قولها وزيردا حلبانا كسودي لبدا أقل قولي قورتدا يا وكيلدا علماء الدين عقال دوقيتي ganacsato iyo sidoo kale dadweyne aad u tiro badan oo dhamaantoodba ka tiiraanyisna geerida ku marxuum xildhibaan Cabdilaahi Ibraahim Xirsi Dhugad. وقورينا waxa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha aqalka golaha odayaasha guurtida Salebaan Maxamuud Aadan oo isagoona dhambaal tacsiyo u diray ehelkii qaraabada iyo shacbiga reer Somaliland ee uu ka baxay marxuumku. Ibraahim Xirsi Ilaahay sameeyay Ilaahay u naxariis niwe baanaga tigi niwe baanaga tigi waa tabin qarniga hawl nuur la waasiyo hawl nuur ilaahay gidigeen bana eheladiisii iyo inaga iyo qarankaba ilaahay sabriye barakasi البدن بوسوق أو قرن أو هالجن أو حلبان اسمه هاينه انت ابو صوب sidoo kale waxa isaguna la hadlay warbaahinta isaguna tacsiyo diray marxuumka gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada Somaliland islamarkaana gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. inna ilayhi wa inna ilayhi raaji'uun waa tacsiyo qaran u diraya qoysaskii iyo shacbiga reer Somaliland iyo golayaasha qaranka geeridii ku timi xildhibaan Cabdilaahi Xaaji Dhugad oo kamid ahaa tiirarka dhaqanka ee Somaliland ninka weyn ee naga baxay maanta Ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu dambi dhaaf siiyo naxariistii jannadana geeyo waxaynu shacbiga iyo qoysaskiisa iyo qarankana waxaan dhamaanteen leenahay Ilaahay samiriye iimaan haynaga siiyo. iyaguna waxa dhankooda warbaahinta si gaar ah ugu waramay islamarkaana ka warbixiyay taariikhda marxuumka iyaguna dhanka kale tacsiyo u diray ehelkii qaraabada iyo shacbiga Somaliland ee ka baxay xubno kamida golaha wasiirada xildhibaana ka tirsan labada aqal gole ee guurtida iyo wakiilada iyo sidoo kale culimada diin cuqaal iyo dadweyne tiro badan oo goobtaasi ka soo xaadiray. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Cabdilaahi Ibraahim Xirsi Dhugad xildhibaankaasi waxa waa xildhibaan weyn wuxuu kamid ahaa dadkaasta ugu waaweyn ama shakhsiyaadka ugu mudan golaha guurtida wuxuu ku soo jiray tan iyo maalintii la aasaasay golaha koorna wuxuu kamid ahaa odayaashii iyo dadkii waaweynaa ee nabaddu ku soo hiratay wuxuu kamid ahaa dadka geesiyaasha ah ee la xuso marka wanaagga wax ku doona marka ay adag tahayna sida ugu wanaagsan ku dhameeya arrinkaasi buu ahaa. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun iyo taariikh maal dahaba ku taala oo aan la ilaawi karaynin halgankiisii dambe nabadeyntiisii dadka isu keenistiisii golaha guurtiga abuuristeedii ilaa Cabdilaahi Dhugad oo ahaa nin weyn oo taariikheed oo geesi qarana oo inaga geeriyooday oo shalayta taariikh nool ahaa
maantana aynu meydkiisii halkan ugu ducaynayno aynu ku aasayna buu ahaa jirno halka ugu adag yidhaahda kolley kaalin weyn baa nagu bannaanaatay maanta inkastoo cabdiwaraabe noo nool yahay wuxuu ahaa nin rusheeg badan marka dadku murmaan midhka lagu dhici waaye goluhu ku dhici waaye hadday dawlad tahay iyo hadday beele isdilay tahayba ku yidhaahda ilaahay waxaan uga baryaynaa sabir iyo iimaan isagiiyo ubadkiisii shacbiga somalilan oo dhanna waxaan leenahay sabir iyo iimaan allah idinka siiyo maanta halkan waxaan oo nimid aynu aasaynaa nin inugu weyn haddii reer somalilan nahay waxa weeye nin halgankii ka soo qayb qaatay waxa weeye nin nabadayntii ka soo qayb qaatay waxa weeye nin ka mid ahaa golaha qaaliga guurtida gabagabadiina waxaa halkaasi eraye isugu jiray duco iyo sidoo kale tacsi u diray dhammaanba shacbiga somalilan ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay iyo sidoo kale xildhibaanada aqalka golaha odayaasha ee guurtida madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun maanta halka waxaanu joognaa aaskii marxuum cabdilaahi ibraahim xirsi dhugad ninkaasi wuxuu ahaa nin weyn oo qaali ah ummadda Soomaaliya qaali ah wuxuu halgamaa weyn geesi xubin golaha guurtida ka mid ah wuxuu ahaa aan garanayaa inuu halgankii door weyn ka qaatay xoreynta dalka kan qiimo weyn uu ku lahaa ummadda tan magaciisa sharaf u lahaa nin geesi ahaa oo wax walba u quura ummadda dadkii ummadda uu ka dhashay u quura ayuu ahaa waxa la naxariistii jirna ilaahay ka waraabsho kulligeena samariye iimaan Allah naga wadsiiyo على نحريستي جنة فردوسها كورابي مرحوم عبد الله إبراهيم حرسي دوغد وعو سندي كون سقال بقول تضبية لباتكي كودشي ديغان كأودويني ee gobolka Daadmareed isagoona ku soo barbaaray deegaana ay kamid ahaayeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyo sidoo kale magaalada Hargeysa على نحريستي جنة فردوسها كورابي مرحوم عبد الله إبراهيم حرسي دوغد waxuu ka soo qayb galay halganadii kala dambeeyay ee lagu xoreeyay dalka gaar ahaan halgankii ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM isagoona qayb lixaad leh marxuumku ka soo qaatay tan iyo intii uu ku jiray aqalka golaha odayaasha ee guurtida xalinta khilaafaadka soo kala dhexgala beelaha isagoona inta badan lagu xasuusan karo erayo dardaarana oo u jeedin jiray bulshada Somaliland marxuum Cabdilaahi Ibraahim Xirsi Dugad waxa uu ifka kaga tagay 89 carruura oo isugu jira wax uu dhalay iyo waxay sii ala naxariistii Janna Firdawsaha ka waraabiya marxuum Cabdilaahi Ibraahim Xirsi Dugad oo mudooyinkii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay hoyga uu ka degan yahay gudaha magaalada Hargeysa ayaa maalintii shalay tula ahayd ku geeriyooday isla Hargeysa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wa Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA telefishinka caalamiga Royal TV magaalada Hargeysa.